kulanti wacan saaxiibada qiimaha badan ku soo dhawaada 6 shay oo ay tahay inaadan sameyn aroortii ama ay tahay inaad ka fogaato haddii aad rabto in maalintaada ku toosto oo si wanaagsan kugu bilaabato kuguna dhamaato. haddaba daawaday haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin channelka inaad subscribe saarto sidoo kalena aad gambaleelka furato si aad ula socoto bartani muuqaalada kala duwan iyo barnaamijyada kala duwan ee aanu idinkula soo wadaagno. imika iyo haatan ku soo dhawaada waana diyaarintii wariye Ismaan Indhoos. Wataan ku bilaabay qodobka koobaad daminta ama dharbaaxida alarmiga. saacada ka kacisa hurdada waxay ka mid tahay waxyaabaha inaad iska ilaaliso loo baahan yahay waayo waxaad si jeclaysan inaad si hurda taasoo kugu kalifayso in aad damisa marka alarmiga yeero ama xilliga salaada ama xilliga shaqada intaba waxaadna iska dhaadhicisaa 10 daqiiqo ku sii darso ama in yar wax yar indhaha isku sii qabso waxaad u haysataa in wax ku tarayso daqiiqadahaas ee aad isku celisay hurdada laakiin bil cagsi daawade wax badan ayay ka haleen waana caado iyo dabci loo baahan yahay in aad iska jartaa waxa ogaataa kullama maskaxdaada ku qasabto waqtiga hurdada lahayd waqti dheeraadi ah inaad ku sii darto ama aad ka naaqusisa maskaxdaadu way ku wareeraysaa arrinkaas daawade. qodobka labaad iska qarinta ama iska ilaalinta iftiinka sida in aad daaha iskaga aadisa iftiinka daaqada si aysan hurdada kaaga qasin. haddaba midaan waxaa ogaataa daawada in maskaxda ay ku wareerayso oo ay kala garan weynayso in habeen tahay iyo in ay maalin tahay midaan hadhow markaa kacdo waxay ku keenaysaa culays badan iyo caajis badan dhanka maskaxdaada oo aad gaartid heer aad ku dhex hurdootid marka shaqada ku jirtid haddaba si ay active u noqoto maskaxdaada samee in aad shido leyrka furtana daaqadaha si iftiinka waaga baryay u aragtaa wax badan ayay ka qaadan furfuridda maskaxda xaaladii hurdada iyo waliba furfurnaanshaha dhanka shaqada arrinta ku caawinayso sirta waxay tahay daawade waxaad furtaa daaqadaha daahyada intaadan seexan ka hor waxayna ka caawin midaan si hufan oo dhib la'aan ah inaad uga kacdo ama kaaga kiciyo iftiinka subaxi. qodobka saddexaad dhuminta waqtiga sariirta dusheeda daawada ma ka bilowda markaa soo kacdo inaad fiirfiiriso mobilka mise gashaa social media sida Facebook inaad page-ka fiirfiiriso ama snapka wixii la halmaala. haddaba waxaa ogaataa inay tahay dabci xun waqtiga ka dhumanaya daawada samee waxyaabo ku dhiirigelinaya jirkaaga furfuraya iyo maskaxdaada shaqada ka hor taasoo inaad sameysaa sports ama jimicsi fudud waxaad ogaataa haddii aad leedahay dabcigaas inay kugu dhacayso 2 shay oo midda ugu horeysa waqtigaaga qaaliga iska dhumisay midda labaad oo inaad dhaawacayso ama waxyeeleynayso wax badan oo aad qabsan lahayd dabci xunna ku yeelayso daawade. qodobka afraad shaqo bilaabida dhaqsiba markaa soo kacdo haddaba daawade midaan inta aadan sameyn isku taxaluuji 3 shay oo muhiim inaad sameysaa afka qalaad waxaa lagu dhahaa energize motivate inspire oo 3 shay muhiim in aad energy gelisaa nafsadaada dhiirigelisaa ama kicisaa oo waxyaabo nafsadaada dhiirigelinaya sameysaa ama daawata. qodobka shanaad u karar qaado ama hubee oo xooji waxaad xiiseynayso intaadan howlgelin subaxi dhanka kale daawade miyaa cabataa dhanka shaqada subaxi haddaba haddii ay jirto ogow in aysan wanaagsaneyn cabashada badan waxaadna ogaataa inay ku siinayso wax afka qalaad lagu dhaho negative direction oo inay ku wicinayso jiha qaldan kuna nacnisiinayso shaqadaada. qodobka lixaad ma isticmaashaa waxyaabaha macaanka ka buuxa subaxa hore ama aroortii waxaad ogaataa inay saameyn ku yeelanayaan shaqadaada waliba geliga dambe sida ay sheegeen takhaatiirta waxayna kugu ridi hurdo iyo caajis haddaba isticmaal waxyaabo kale oo energy ku siinaya sida protein iyo complex carbs. intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeena maanta intaan waqti dambe kulmi doono daawadayaal haddii Allah awoodda idmo waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadino.